maalintu waa Arbaco waa 14 Agoosto 2019 taariikhda reer galbeedka saacadu waa abaara 11 galabnimo waana xilli aanu shaqada ka soo yara baxnay si aanu u qaxweyno goobta aanu fadhinay waa barxadda Xamdo Hotel oo aanu waqti ku qaadanaynay ani iyo asxaabtuba daqiiqada kooban kadibna waxa muuqaal nagu dhaliyay in aanu warbixintan idin soo diyaarinana daawadsiiyay mid kamida asxaabta aanu goobtaasi ku kulannay واسكاروسينا ما قرش الربا marka qarash in la shaqeeyo oo qarash la helaa loo baahan yahay hal meel oo kaliya ayaa ninkaas laga heli karaa meejaasina waa ninkii saaxiibkii ahaa ee ku soo booqday xabsiga waxa loo baahan yahay sumcadda askarta iyo inaan ilaalino sharafta degmadaba hadda la soo qabtay ninkaas waa maxay loo taagan yahay gaariga Carlos, man, you making that guitar cry. Put him up, y'all. Put him up, y'all. Put him up for Carlos Santana in the house tonight. muuqaalkani waxa uu ahaa film ay diyaariyeen dhalinyaro Soomaaliyeed muddo 5 sano ka hor kaasi oo ka turjumayay geesinimada martisoorka saaxiibtinimada iyo dhaqanka Soomaalida kaasi oo sidoo kale xooga saarayay dhowrista sareynta sharciga filimkani ayaana lagu matalay degmada Gure Dhaamuule oo waqtigaasi ka tirsaneyd gobolka Afdheer balse waqti xaadirkani ka tirsan gobolka Liibaan haddaba si aanu u helno warbixin dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha ku dhaliyay dhalinyartani in ay matalaan filimkani ayaa waxa aanu raadinay mid kamid ah dhalinyartii filimkani matashay kaalinta weyn ku lahaa kaasi oo markii aanu helay kadib aanu wax ka weydiinay qaabkii ay u sameeyeen filimkani balse ka hor inta uusan su'aashiida iga jawaab celinin ayaa waxa uu yiri Cabdulsaaqo marmarka qaar hayaanka nolosha waxaad kula kulmaysaa qof da'diis ay aad u yar tahay misana waqtiga iyo waayaha adduunka waxa ay bareen usan xataa barin qof waayeel ah run ahaantii waraysigan maanta waxa uu yahay aniga talaabo kamid ah horumarka aan u jiro loolankii muddada dheer aan ugu soo jiray si aan uga maray dhaliyo hadafkayga ku aadan dhanka sameynta filimada filimkan la magac baxay ma adiga runtii waxaan sameynay muddo 5 sano ka hor ah waxaan sameeyay dhalinyaro u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida scriptiga waxa qoray aniga oo Maxamed Cabdullaahi ah iyo saaxiibkayga qaaliga ah Xuseen Colaad directingigana anaga ayaa lahayn goobta aan filimka ku sameynayna waxay ahayd Gure Dhaamuule ayay ahayd run ahaantii si aan u hirgelino filimkaasayta waxyaabo badan ayaan u sameynay waxyaabo badan ayaan u hurnay waqti badan ayaan u hurnay alxamdulillah wayno hirgashay talaabadeena ugu horeynayna waa aan sameynay ilaaha mahad leh noolaha adduunka dushiisa ku nool bini aadamku waa midka ugu karaamada badan sida uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu sheegay mana jirto shakhsi adduunka dushiisa loo keenay in la leedo amaba uu dadka ka hooseeyo ilaa uu isagu isliida ma ahane balse waxaa jirta shakhsiyaad ka indhasaaban haybada uu Ilaahay siiyay firfircoonida ku jirta iyo meesha ay ku fiican yihiin waana kan Maxamed Qalbi oo ka hadlaya waxyaabaha ku dhiirigeliyay sameynta filimkani run ahaantii waxa lagu dhiirigeliyay qof waliba horta wuxuu leeyahay haybad ayuu leeyahay mar ahaantii marka aan dareenay in aan qoraalka filimada iyo jilitaanka aan haybad u leenahay marka aan dareena waxaan ku dhaqaaqnay sidii aan haybadeena uga mira dhalin lahayn Maxamed waxa uu sidoo kale noo sheegay in bulshadu inteeda badan aysan fahansanayn filimka balse ay leeyihiin faa'iidooyin aad u badan Cabdulsaaqo dhibka ugu weyn horta wuxuu yahay bulshada horta intaada badan ma fahansana filimka marka aad ka hadli waxa macquul qofka inuu ku yiraahdo inaad kaftan u maleeyo balse faa'iidooyinka horta hadii aan marka hore ka sheekay faa'iidooyinka ay filimaanta bulshada u leeyihiin
dowlad deegaanka waxaa jira horta goobo qaali aad u ah dhul dabiici ah oo maxaa iraaday lama arkaan ayaa jira waxaa jira maxaa iraaday even dhanka duurjoogta xataa haddii aan ka hadlo waxaa jira duurjoog dabiici ah oo macnaha dhanka Itoobiya xataa marka loo fiiriyo dowlad deegaanka oo kaliya ta laga helo waxaa jira goobo oo qadiimi ah ayaa jira goobahaasi ta macnaha si aan caalamka u tusno wadada kaliya aan isticmaali karno waa filimada haddaba caqabado noocee ah ayaa ka hor yimid dhalintani markii ay sameynayeen filimkani la magac baxay Ma Adiga والله عقباتها نجو هري ماذا وحي هاد كو هرت خرجكي دب كذا لا هاي هذا كلا إلكترونيك حتى ما ننهيسنين أو محير هذا سوفت وير هذا ما ننهيسنين مركي أدوحي أوحول بو أدوبة حتى مركي هذا نهيلي كرنا دب كذا عيا لا هاي جوارب عن استعمالي نموتها لاستعمالي شذالك وحوها جاب كنجا دق ماذا inkastoo markaas ay tadanka gaadiidka ay naga caawisay shidaalka iyo kharashaadkii wixii ku bixi lahaa anaga ayaa ka fargareynay والله waxaan qorshaysan runtii qisooyin badan oo qoraalo noo qoran oo waxa jira noo diyaarsan baa jira dowladdeegaanka sidoo kale waxa jira dhalinyaro badan oo ku hamiya ayaa jira in ay macnaha kamera dhaliyaan arrimaha macnaha rajadooda ama riyadooda ku saabsan kaga aadan dhanka filimada waxa rajaynayaa insha Allah dhalinyaradaas oo dhan kii riyadooda u hirgelin lahaa inaan noqdo insha Allah ayaa rajaynayaa haddii oo caawimaad aan helana waxaan sameyn karnaa macnaha caalamka filimada in aan horumar ka gaari karna ayaan aaminsanahay waayo wax nagu liita ma laha dhalinyaro badan oo talented ah ayaa jira dowlad deegaanka oo rag iyo dumarba isugu jira haddiina la caawiyo oo dhanka filimadana laga caawiyo horumar inaan ka gaarina shaki kuma jiro marka dowladda waxaan ka codsanayaa in ay dhalinyarada anaga iyo tiimkayaga iyo wixii xiiseeya caalamka filimada in ay garab naga siiyaan inkasta oo kaamirada lagu duubay muuqaalkani ay ahayd mid ay tayadeedu liidato isla markaasna aysan dhalintani helin wax caawimaad ah markii ay matalayeen filimkani haddana dadaalka ay sameeyeen waqtiga ay u hureen iyo isku daygooduba waxa uu ahaa mid aad u sareeya daawadayaal maxamed qalbi oo filimkani Ma Adiga ka ahaa ka balaadarka markaasi filimkani la matalayay ayaa waxa uu waqti xaadirkani yahay shaqaale dawladeed balse waqtigaasi oo ahayd 5 sano ka hor waxa uu ahaa galaaska 12aad ama markaasi uu ka baxay galaaska 12aad iyadoo 5taasi sano markaasi ka dambeysay waqtiga filimkaasi ay jileen uu sameeyay horumar balaaran isagoo jaamacad ka soo baxay isla markaasina waqti xaadirkani ah shaqaale dawladeed maxamed qalbi waxa uu sidoo kale ee ballan qaaday filimaan kale oo ay sameyn doonaan inuu aniga laftirkayga uu atooro iga dhigi doono aad baanan uga mahad celinayaa filimaantaas